واتاي مركنا سعدية سياد oo ah gabar ka tagtay Britain ayaa Muqdisho waxay ka furtay xarun lagu barto farsamada gacanta Sacdiya oo dalkan markaasi ka baxday waxa ay ka soo qaxday markii hore dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya waxaana dib ugu laabatay Soomaaliya si ay ugu shaqeysto waxa ay baratay oo ah caafimaad waxayna doonaysay inay dhakhtar noqoto laakiin waxay sheegtay in ay garatay in Soomaaliya u baahan tahay arrin kale oo ah iskuul lagu barto farsamada gacanta BBC-da ayay u warantay 2011 ayaan booqasho ku imid magaalada Muqdisho anigoo rabo run ahaantii in aan eego dhibaatooyinka ku dhacay wadanka iyo dadkiiba sidii aan u saaciidi lahaa ayaan run ahaantii waxaan suubiyay research waxa ay soo baxay inay jirto 3 baahida ugu horeyso dadka culumta leh meel ay ku aqoontooda ay ku saacidsadaan meena jirin mase aqoon yaro iska fudud oo gaaban oo ka duwan wixii ay hore u soo barteen haddii ay rabaan oo inay soo saacidsadaan ma ayna jirin bay ka soo dureereen waaliyadiinka dayar yadu qabo waxaan duminayna waa dalkani hooyo dib ha loo heshiiyo waxa kaloo baahi zaa'ida ka jirtay xirfadaha gacmaha managerin institution xirfadaha gacmaha oo fargareynayo oo dhiibo macadka wuxuu caawiyaa dhalinyaro kala duwan oo wadanka ku nool iyo dad khubaro ah mase jaamacadaha ka shaqeeyaan mase macallimiinta iskuulaadka ha ahaadaan mase dadkii dawladda oo private iyo public kadiiba ka shaqeeyaan intaas oo dhan ah ayuu macadka run ahaantii oo caawiyaa waxa kaloo noo dheer dadka qaxootiga soo noqday oo ka yimaadeen Yemen iyo Kenya macadka waxbay ka bartaan dadka kale oo IDB-yada loo yaqaan oo barakacyaasha ahna macadka waxbay ka bartaan waxyaabaha ay ka bartaan waxa kamid ah cunno kariska xirfadaha gacmaha oo kala todo kamid yihiin isqurxiska dumarka xarqaanka sida loo tolo sida computerka loo hagaajiyo sida computerka software-rada iyo loogu suubiyo sida loo suubiyo graphic design-ka iyo digital creative media dadka wax ka barta macadka Hana Academy waxa u badan haween muhiimna waa run ahaantii haweenka in la caawiyo waayo waa laf dhabarta ummadda Soomaaliyeed waa hooyooyinkeena waa gabdhaheena waa xaasaska rageena tacliinta aan barno haweenka Soomaaliyeed dib ayay ugu soo laabanaysaa qoyskeeda iyo mujtamaca meel kasta ay joogaanba dad badan baa igu yiraahdaan haweenka shaqadooda waa inay joogaan guryahooda ay caruurtooda korsadaan sababta kugu kalifta waa maxay inaad shaqooyin badan aad isku kor qabatid jawaadeeda waxa waaye run ahaantii waxaan dareemayaa inaanan qof dhan aanan ahayn haddaan hal shaqo haysto mase hal meel kaliya aan joogo waxaan jeclahay run ahaantii in aan shaqooyin badan aan isku wado si aan u dareemo inaan noolahay. Love to learn at Hana Academy.